balana siyar dhageysano qisadan wadaadkan ku muxaadareynayo u fiirsada oo dhalinyaro yar ah oo wax baranaysa ayuu u yahay caalimkoodii macalinkoodii barahoodii macnaha malihi inuu mar kasta wax baro laakiinse haddadan waxbuu barahayaa isaga oo u jooga meesha inuu yahay shakhsi aqoon leh, shakhsi khibrad leh, shakhsi meelo badan soo maray. saa darteed ay munaasab tahay faa'iidana ugu jirto inay dhegaystaan. markaan bal isla dhegaysano. saddex nin oo xamaaliina dhex martay weligin ma maqashay saddex nin oo xamaaliina xamaalku soo ka mid ah dhabarka alaabta ku qaada wadan waxaa jiri jiray Andalus la dhihi jiray haddana Spain loo yaqaano oo 800 sano muslimiinta ay maamulayeen kadibna hadda muslimiinta ka soo dabar go'een marka dawlad ka jirtay islaam oo xadaara ka jirtay oo saddex nin oo xamaaliina ah afarta jir ku gaaray oo suuqa intay tagaan alaabta dadka u xamaala iyo habeenkii iyagoo daalana sii seexanaya waa iska bulo guriga seexdaan xaas male waxba male waa xamaaliin iyo madaxweyne walaal toos haddana madaxweyne noqdo maxay ka dalbaysaa waa xamaal afartan jir ah oo weligii qalin waraaqna isa saaray taas waxa dhawnin dhigayso naga seexo warta aamuso haddaan madaxweyne noqdo wax iga dalba midda wuxuu wallahi hatta shakluka ma huwa shaklu madaxweyne buu faal xumida ala hadii la fiiriyo kulaha ada kaftan dheer kadib midda wuxuu dhigayso haddaan madaxweyne noqoto guri qasri ah gabar qurux badan intaasoo faras intaasoo beerood wax badan buu sheegtay foo wala ka buuran ku qoray kii kale uu yahay adigana wali madaxweyne noqon maysa laakiin tan madaxweyne noqotay inta dameer isaarto oo gadaal ii sii jeediso oo suuqa igu wareejiso tiraahdo waa tuug waa xaraami waa kan jeelka igu iloobo foo wala ka buurisna buu qoray subaxii station police ugu dhawaab uu aaday waxaan rabaa marka dhowr wax baan ka dhihi sheekadan. waxaa la yidhi sheekadu waa sheeko cajiiba. horta anagu waxaan aaminsanahay sheekadan inay tahay sheeko dhabaha iyo inay tahay sheeko la sameeyey. waxay u dhowdahay inay tahay sheeko la sameeyey haddaynan ahayn 100% sheeko la sameeyey inay inteeda badan tahay sheeko la sameeyey oo macnaha wax yar laga yaabo inuu ka jiro laakiin inta kale si loo qurxiyo loogu daray. arrintan waxaan uga jeedaa malihi ninkan hadda hadlahayaba arrinta sameeyey malihi asalkeedan ka hadlaya. waxaa jirta dadka qoraalka iyo akhrinta ama waxa af ingiriiska lagu dhaho literature la dhaho ama qoraalka waxyaalaha la qoro buugta qiimo badan bay leeyihiin laakiin asliyan waxay u qaybsamaan 3. mid waa taariikh oo sheeka la sheegaya warba laga warramaya wax dhacay ayaa lagu sheegaya waa taariikh oo inta badan waxa la doonayaa in lagu record lagu diiwaan geliyo wax soo dhacay. midda labaadna waxa weeye mid aha cilmi oo wax barid ah oo lagu leeyahay hadaad waxa iyo xisaab oo kale waxa hadaad isku darto xisaabta mid base bilowgii ahaa 1 lagu daray 1 waa 3 4 lagu daray 4 waa 8 ama mid si dhexal dheero maartay galaysa xisaab aad u dheero qoda dheer galaysa iyo midda kale ee science-ka biology cilmiyeynta noocaas oo kale taa la barayo wuxuu yahay wax lagu barayo ama caafimaad wax la mid ah. qaybta saddexaad ee kale waxa lagu dhahaa Soomaali waxaan u maleeyaa inay tahay sheeko xariir inay ku haboon tahay laakiin ingiriiska waxaa la dhahaa novel ama asalka ereyga ku dhabta ku haboon waxa weeye fictional. novelka naftigiisa wuxuu noqon karaa mid sheeko ka sheekeynaya dhab oo taariikh ah laakiinse kuwa waxaa jira badan oo fictional macnaha waxay tahay ruux baa sameeyey ujeedada ugu weyn ee loogu talagalay waxa weeye waxa la jiray sheeko xariir ama entertainment in dadka loogu waxay
faa'iidana way leedahay oo wax laba dhigi karo, faa'iida aan lahayn laba dhigi karo. Maskaxday dhistaa. Waxay creativity-ga ayay maaragtay qayb weyn ka qaadataa oo ruuxu inuu wax dhiso. Sheeko isku dubaridka waxay baraysaa ruuxu inuu markuu war sheegayo inuu si fiican oo tafatiran oo dadku ay fahmaan u sheegi karo. haddii uu ku tababarto ama uu ku practice ku sameeyo fictional writing oo kale iyo wax la mid ah. Saadaradeed waqtiga hadda muslimku waqtiyadiisii horena waxa ahaa loo og yahay qoraalka muslimka aad u hormariyay. muslimiinta hadda uu ka hadlayo aad bay u hormariyeen. waxaa marmarka qaarkood aan garanayaa iyadoo la sheego la dhaho waqti waxaa jiray zamanul kalaam la dhaho muslimiinta soo martay zamanul kalaam. waqti waxaa jiray dadku hadalku bartay oo nooc haddii la dhaho kalaam baa markaa la iska leesay waxay u badan tahay macnaheedu inay tahay falsafo wax la dhaho kale in wax kasta la taxliiliyo, wax kasta la qoro, wax kasta laga hadlo, sheeko dheer laga sameeyo ilaa aan waxaan malanayaa inay waxyaalihii mar dood dheer ka dhacday oo xataa siyaasad gashay oo dad culimo ah xataa la xirxiray. waxaa ka mid tahay mar la yiri dood waxaa dhacday waqtigaas ama inay ahayd quraanku ma wax la abuuray baa mise wax abuuray, ma khaaliq baa mise waa makhluuq. markaasay dood dheer baa dhacday ilaa markii dambe la yiri lama dhihi karo quraanka waa makhluuq, wax la abuuray way lama dhihi karo. wax noocaas oo kale ah hadee dood noocaas oo kale oo dheer baa gashay. macnaha waxaan ka wada waqtigaasi waxay ka mid ahayd waqtigii zamanul kalaam la yiri. macnaheedu isku soo duuduubo waxay la mid tahay waqtiga hadda aan joogno oo kale marka loo fiiriyo si hadii loo fiiriyo oo tan mid tahay hadalkii iyo qoraalkii baa batay oo falsafada maskaxda laga hadlayo. mana aha wax la dhihi karo wuxuu yahay, ma ahi ani ma aaminsan inuu wuxuu yahay inuu ruuxu wixii kala saaro, inuu maskaxdiisa isticmaalayo oo wax doonayo inuu kala cadeeyo baa muhiimad u tahay oo san ka dhigin wax war ah oo ama taariikh ah ama cilmi ah oo ka dhigin. hadduu ruuxu u sheego dadka uu dhaho waxaan aan samaynayo sidan weeye wax ani uma arki qalad inay tahay. sheekada marka saadarteeda waxaan u arkaa haddayna dhammaanteed ahaynba inteeda badan inay tahay sheeko fictional ah oo la sameeyay ee sheeko dhab u dhacday ma. laakiin midda waxaa soo dhan iga daranba waxay tahay wadaadkan fursad aad u weyn oo qiimo badan leh ayuu haystaa markuu dhalinyarada la hadlayo inuu sheekadan u isticmaalo inuu maskaxdooda dhiso, inuu dhiso shakhsiyadooda, inuu dhiso dabcan wuxuu u diyaar garaynayaa inay tabartii ah inay noqdaan madaxdii dalka, hogaamiyaashii mujtamacooda iyo communitygooda. in marka uu u tilmaamo waxyaalaha qaarkood ee meeshan ku jira oo uu dhaho khaladaadka ku jira, khaladaadka ka dhacay meeshan uu sheego dulmiga ah, xadgudubka ah, meel ka dhac ah oo uu farta ku taal. bal inna haba yaraatay arrintaasi ma uusan ka hadlin. waxaad moodaa in uu ku boorinayo haddii fursadaas oo kale ay soo marto inay saas oo kale sameeyaan ayaga naftigooduna inay u diyaar garoobaan fursadaas oo kale hadday soo marto, hadday ka hor timaado macnaha in mujrim ah oo awood leh meel gaarsiin kara haddii ay la kulmaan sidii uga faa'iideysan lahaayeen inay xoog saaraan. taana ay tahay mida tusaysa shakhsiyadooda iyo dadnimadooda iyo macnaheedu isku soo duuduubo adduunyo ayaad moodaa wadaadkan inuu xoog saarayo aakhiradiiba inuu iloobay maxaa la dhihi jiray maxay ahayd wax la dhaho ingiriiska la dhaho integrity. ruuxa shakhs inuu yahay ruux damiir leh oo xumaan iyo wanaag u kala cad yihiin oo xumaan si kastaba ha ugu macaanaato, si kastaba ha u lahaato, ha ugu ekaado inuu faa'iido ku gaari, inuu ruuxu uusan innahaba yaraatee hunguri ka gelin. wixii wanaagsanna si kasta ha u khararaato, si kasta ha kuugu dhib ha kuugu noqotee inuu noqdo waxa koowaad eed mar kastaba ku dhaqaaqdo wuxuu doona ma noqdee. fursadaasi innahaba yaraatee wadaadkan muusa sheegin, bal lidkeeda iyo dhalinyaradan ku xoojiyey. waxaan isla dhegaysano si fiican qisada u dhageysta. waa xamaal, waa 40 jir, waxna ma qoro waxna ma aqriyo, wuxuuna go'aansaday madaxweyne inuu noqdo. marka taasoo hadda ka dhigayaa inay tahay wax lagu
maartay maxaa la hamiyo waa jaahil hal xumaan ma aho inuu xamaal yahay ceeb ma aho uu shaqaysanayay taas waa arrin wanaagsan weeye laakiinse wuxuu ma yaqaano wax uu kasbanayana ma jiro wuxuu rabaa in uu xoog iyo khaa'inimo iyo jujuub iyo ballanka bax ayuu rabaa inuu meel ku gaaro laakiinse wadaadku wuxuu xoogga saaray inuu yahay uun jaahil waxba qorin waxba aqrin marka nin weeye wuxuuna ninku yahay wuxuu aaminayaa inuu awood qabto asaga oon usoo marin hadduu dhihi lahaa wuxuu noqonayaa ruux daacad ah ruux dadka kale u shaqeeya dadku jeclaadaan mid baan rabaa inaan ku darsado arrin waxaa jirta sal iyo raatoon aan lahayn oo been iyo war ah oo laga dhigo ruuxa madaxa fiican ah ruuxa hoggaanka fiican noqon kara ruuxa daacadda noqon kara ruuxa shakhsiyadda leh inuu yahay keli oo ruux wax bartay sal iyo raatoona malo bal waxay u badan tahay kala dhahayo waxbuu bartay mid fidradiisa asalkeed laga bedelay weeye wuxuu u badan yahay marka inuusan wanaag lahayn ruuxa madaxda quma noqda waa ruuxa fidradiisii wanaagsaneed wata weeye daacadnimo iyo shakhsiyad iyo wixiisa iyo waxa dadka kale wuxuu doonaa wax noqda ay u kala soocan yihiin waxa dadka marka lagu wareeriyo naga soo galay qaswatul fikri la dhaho lanagu abuuray weeye la dhahayo ruux wax bartay baa wax garanaya ruux wax bartay baa wax hogaamin kara ruux wax bartay baa wax hayn kara station booliiska ugu dhawaay magaalada uu tagay maxaa rabtaa booliiskan qoranaya waa nin xamaal oo murqaal adag ma ogtahay qoraa laga qoray 10 sano markuu joogay wuxuu noqday caasimadda Qurtuba magaala madaxda markaas Qurtuba hadda loo yaqaan ama isku magaceeda hadda wadataa Qurtuba booliiskii ninkii u sareeyay buu noqday magaalada caasimadda si uu dalaacay ilaan waa nin dhisan moogta marka boqorkii baa dhintay waxyaalaha tusayay ka mid tahay ama sheekada si sax looma sheegayo ama inayna jirin oo wax fictional ay tahay sababtoo ah ninku kuma noqon karo booliiska iyo madaxda hogaamiye ma noqon karo kaliya sababtoo xoog buu leeyahay muruq buu leeyahay markii ugu horeysay in la qoro ilaa xad waan dhihi karnaa oo saadaabo nin caafimaad la qaba yahay oo xoog leh saasa askarta waxyaalaha xoog lagu qiimeeyo bilowga u horeysa waxay ka mid tahay ruux caafimaad qaba oo xoog leh inuu yahay oo maartaqaanaa qaban kara shaqadan adag laakiinse inuu ruuxii dallaco oo koro oo hore u socdo waxay u baahan tahay caqli iyo maskax bay u baahan tahay keli muruq maan leeyahay biseed ma ku koraysi waa arrin iskeerin wey isagoo ah ninka booliiska u weyn berigaana dee muslimiintu meelaha taariikhdooda ay ka kharib meelaha taariikhdeena ka madowda ka mid tahay wiil yar oo 5 jir ka tagay oo waxba xukumi karin hada fiiro kaas waxyaalaha lagu abuuray qaswul fikriga bay ka mid tahay ila dhaho maskaxda qabsiga lanoo waxay leenoo sameeyay dadkii wax garadka inoo iska dhigayana ayadoo duuduubana sidoo wato dadkii ay la imaanayaan hadda hal kuma dhanno in uu nin madax ahaa oo dhintay oo wiilkiisii asagii waaba dhintay uu ka tagay baa uu ku leeyahay fiir uu uga tagay buu ku leeyahay ruux dhintay muxuu ka tagay waaba dhintay be dabcan dadkii ag joogay sababtu waxay daba noqotay ayaa waxay go'aansadeen amaba nidaamkii la samaystay heshiiskii la galay wuxuu ahaa in uu ruux wiilkiisa inta badan wiilashun bay ahayd baa malanayay inuu eelkiisii booskii uu qabto marka laakiin ninkan dhintay waaba dhintay muxuu ka tagi karaa wax ka tagay nin dhintay waxba kama tagi karo nin dhintay waxba kama tagi ku ceel uu dhintay waa dhintay taladu waxay u taallaa dadka markaa nool bay u taallaa dadkiiba marka go'aanka qaatay oo socodsiinaya oo ahaa laga yaabo inuu mid soo jireen ahaayo intaasoo koor hore inuu soo dhacay marka arrintii marka meesha uu taa qadarintaa siin lahaa ee dadka xigmadoodu sayidaba noqotay ayuu hadda wuxuu ku soo taas buu wuxuu ka dhigaya dambiga ugu weyn mujrimkan sidoo noo sheegaya dhaalimka ah markuu xamaaliga ahaa saaxiibadii meesha la seexanayay u ballan qaaday go'aankan uu qotay
rabay awoodda si u qabsan lahaa halkaa u dhaqaaqay daalimnimada iyo mujrimnimada arrintan naguma baraarujinin dhalinyaradii kuma baraarujinin ardada kuma baraarujinin kama hadlahayo laakiinse waxay la noqotay inuu ku baraarujiyo ninkan dhintay sidii uu rabay ama sidii uu jeclaa ama waxa uu yiri ahayd wiilkayga ama nidaamkii uu dejiyaba ka soo qaad ahayd wiilkayga wuxuu doona hadho ruux dhintay waaba dhintayba marka arrintan go'aanka waxaa qaatay dadkii meesha joogay madaxda ahayd dowladda markuu noo sheegayo hal shakhsi way ka badan tahay way ka weyn tahay madax aad u fara badan baa joogto oo military leh oo shaqaale dowladeed leh oo saraakiil sarsare leh oo shacabkii leh oo madax dhaqameed leh boqolaalan title baa xataa jira marka intaasoo dhan baa waxaan wadata oo aqbashay marka wuxuu keliya nooga dhigayaa ceeb weyn oo doonaya hadda inuu marta ku fiiqo nin dhintay yaa sidan sameeyo wiilkiisa 5 jirta ahaa meesha u dhiibay isagoo u dhiibi karaa wuuba dhintaybe wiilkan loo dardaarmo waxaa la yidhi wiilkan dee intuu ka soo koraya ayaa waddanka gacanta ku hayn waxaa la yidhi taliyaha booliista iyo qaadiga labadaas wiilka magaciisa waxaa ku saxiixaan saaxiibkan de waa xariif qaadigii iyo wiilkii wuxuu intuu khaarijiyey uu la baxay amiir almu'miniin alxaajib almansuur manaabirtiiba isagaa looga duceeyey wiil marka haddana fiiri fursadda bal inta fursadood ee wadaadkan soo maraysa fiiri inuu dhallinyaradaasi waxa wanaagsan farta ugu fiiqo oo tuso waxa xunna farta ugu fiiqo oo uga digo mujrimkaas khaa'inkaas ballanka baxahaas inna haba yaraatee waxa uu khalad uu samaynayo ee wax ku istaagayo ee uu ballanka baxayo ballanta xataa mararka qaarkood waxaa la dhahaa xataa hadday ay tahay arrin khalad hadday tahay mar dad ballanta qaada adu og oo sidaa ahayd oo tiri haa waan fulin saas waan fulin sida wanaagsan ee saxda waxa inay saytaadu fuliso kadib hadday dadkii kale iyo wixii kale gacanta u gelisay ay bedelayaan ayaga u taala laakiin adigu inaan soo faada haddaad markii hore ballan qaaday oo tiri haa sidan u fulinayaa tiri haddaad shakhsi tahay waa inaad marka hore aad shakhsiyadaada iyo damiirkaaga isticmaasho oo tiraahdo maya arrintan waa khalad ma fulin karo laakiinse inaad khaa'into oo intaad hoosta qarsato oo hoosta ku tiraahdo arrintan ma fiicne been baan u sheegay hadda oo waayahay saad rabtaan u fulin doonaa baan dhihi markaasaa deedna khaa'imi ma fiicna taasi aayadda qur-aankan maxay tahay ina alamaanata amaanada ka sheekaynaysa cadrada amaana buuraha in la dul saaray faabaynaha وحملها الإنسان اللي مش علماء يجارسين شرين وحصل مش ويك بحضي قاضي يفضل نقاشن كقدر إلى وأسكري وحال الحاجب المنصور أنتو أندلس جوجي ماشي وجارسي يقول كذي عد هرتي جارسي سين مجرد عد وحيالها كلا إذا أنا كملت ححوق لي ماتيريال بحوق لصاري ماتيريال أما مارتي الدنيا يضل iyo walfir shakhsiyadii iyo balan laga baxo dad baa lagu tuntay hadda ninkan mujrimnimada halka ka soo bilaabay iimaan liida iyo dunya darteed saaxiibadii waxa uu sheekeynayay aan dhihi karno ka qiyaasi karno inuu khaa'innimadan soo watay oo waxaan oo dhan uu wuxuu u soo baalandegay si adduunyo u gaaro maal u gaaro madaxnimo u gaaro iyo haddana wuxuu leeyahay oo ka dhigaya wanaag inuu maamulkii waqtigaa jiray muslim ku magacow wuxuu doonaa ahaada inuu meelo fog gaarsiiyey macnaheedu maxaan ka akhrin karaa meesha inuu ku gaarsiiyey inuu dad kale ku xadgudbay ama muslim ha noqdaan ama gaala ha noqdaan waxay doonaan ha noqdaan dad bilim aadan oo kale inuu ku xadgudbay oo uu ku tuntay yuu ka dhigayaa hadda inay wanaagtay xudulmigii uu sameeyey marka meesha ma saarahay waxaad u malaynaysaa hadda inuu ninkaasi ahaa nin daacad aha oo xikmad leh oo intuu ummadihii ka aga dhawaa intuu u diray wufuud u yiri kaalay oo nidaamkayga soo hoosgala nidaam fiican oo cadaalad ah oo horumar ah oo waxbarasho ah oo aqoon ah oo nabadgelyo ah baan idin siinay hadday haa dhahaana uu dhahadeedna soo gala haddii ay maya dhahaana uu dhaho faraha ka qaada miyaad malinaysa inuu yiri waa maya ciidamuu u diray oo uu qasab ku waxay marka waxaas way maanta waxa aanu muslimiinta meeshan geeyay sababtoo waxaas la nooga dhigaya inuu wax wanaagsan yahay
mujrimka daalimka ah ee dadka kale ku tuntay ee dadka kale xaqoodii budiyey ee isagoo intuu dadka maskaxda u gelinaya waa gaalo weeye muslim ma aho macnaheedu hadday gaalku bini aadan ma ah miya naf sanku neefla ma ah miya xanuun ma dareema miya xaq xoolihiisa gaarka ah ma uu laha wixiisa oo ma u laha miya dhulkiisi wixiisi ma uu laha miya marka dowlad soo koore ama lagu magacaabaya islaam lagu magacaabaya yaa la gaarsiini oo adduunka oo markaasaa kumanyaal iyo milaayiin baa qasab intii qoriga dhafoorka laga saaro yaa waxaa la dhihi ashaata markaasay ashaadanayaan markaasaa la dhihi ilaahay muxuu ka rabay muxuu ku falaa ilaahay hadduu ilaahay dadkan waxaad moodaa mararka qaarkood dadkan say u fikirhayaan inuu ilaahay u tabar waayey dadkan inuu ku qasbo isagu oo ka dhigo inay isaga adeecaan oo wax alla wuxuu rabaa ay sameeyaan ilaahay waa qaadirka wax kasta aan xad lahayn awoodiisa marka dad baan kuu qasbi ilaahayow inay adiga ku ictiraafaan ay ku raacaan ay ku ogaadaan ay ku qadariyaan qoriban dhalada ka saari dhafoorka ka saari markaasaan dhihdeen ashhaad ilaahay qira markaasay ilaahay qirayaan markaasaad iska dhigi inaad ilaahay isxaan u gashay macnaha ilaahay tabar muusa lahayn miya ilaahay waa wax rabo weeye inuu dadku ay isaga hadalkiisa raacaan oo isaga wuxuu dhahun ay sameeyaan wax kale ayna samaynin laakiinse nasiib darro waxa meesha ka jira waxa weeye tabar ma ulo marka haddaanu u miciino oon dadka usoo qasabno ilaahay baan yaan raalli laga noqonaya hada kuraab wey wax aan maataqaana qashina socda wey waxyaalaha qashinka ee dadka hoos aynan u fiirnaynin ee dadka lagu barbaarin dhalinyarada waxaasoo kale intii lagu qalbigooda la geliyo iyo moodaya wax caadi inuu yahay gaarsiisana ma jiro ninkii xamaalka ah maalin maalmaha ka mid ah isagoo baarlamaankii iyo madaxdii dhex fadhiyan baa waxaa ku soo dhacay labadii nin muxuu baarlamaan waaba mujrim dictator ah oo xoog ku qabsaday oo ballan ka baxay oo khaa'in ah baarlamaanka u fadhiyo maxay tahay macnaha baarlamaan wadaadkan ma garanay meesha wuxuu yahayba show 20 sano kadib markaa guriga adrees kaala taga oo laba nin oo odayaal bal ka soo raadiya askartii labadoo inta lagu kala gudgoteen duqay ah yaa la soo kaxeeyay meeshii baa la keenay uu fadhiyay iyo golihii deeya madaxda bal ilaahay baan kugu dhaariyaa fiiri hadda kama faa'iideysanaya asagana fursadaasi mujrimka hadduu ruuxa jiro uu soo intaa soo galay ballantii uu ka baxay ma waxyaalaha aysan noo sheegaynin uu soo gaadhay si uu meesha u soo gaadhaya iskaba ilow laakiinse ninkii dhannaay madaxda u ahaa buu ballantiisa ka baxay oo uu wuxuu leeyahay wiilkiibuu marna miyuu dilay qaaligii meeshaasna lagula aaminay buu isna meesha ka tuuray buu dilay mujrim wuxuu noo qiray inuu islaamkiibuu dowladdiibuu gaadhsiiyey intaasoo meeleed gaadhsiiyey buu yidhi markaasuu haddana wuxuu ku soo gabagabeynayaa rag duqeeye ah oo saaxiib ehel ahaayeen oo wax dhibaan u geysanin oo mar isla joogeen ayuu meeshii uu wanaag la raadin lahaa ayuu fawdo iyo aynimo iyo saqajaannimo iyo kibir iyo isla weyni yuu yidhi soo raadiya markaasuu xuquuqdooda intuu ku xadgudbulaa ii soo kaxeeya maxaa loogu soo kaxay maxaa shaqo ugu daray maxay ku dhibeen muxuu ka rabaa maxay ka rabaan ninkan hadda intaa noo sheegima kama hadlay mahayo saqajaannimada uu samaynayo dulmiga uu samaynayo ma uu sheegayo ma dhahayo fiiri muxuu ka rabaa dadkan muxuu ka rabaa wax dhib oo ay ku sameeyeen noo muusa sheegin hadda wax dhibo ina haba yaraata ay kusoo sameeyeen muusa noo sheegin laakiinse dembi ka xun intaasaan yaan wax loo dhiga la helaynin dad aan wax dembi ku samaynin oo wanaag mooyane wax xumaana uusan wanaag uu kaga soo tagay intuu noo sheegeen ka ognahay inuu intuu siraado awood baan la ii soo raadiya nimankii raadi oo maxaa loo raadin haye gurigoodii taga haye oo maxaa loo tagay gurigooda ii soo kaxeey oo maxaa loogu soo kaxayn isoo horfariisiya oo maxaa loo soo horfariisay su'aalaan su'aali oo muxuu su'aalo su'aali oo intaasoo dhan waxaan ahay sahlama waa iska caadi wey fadhiday yaa la soo geliyay labadoodii haye habeenkan waxaan isnidhi sheega buuri kii de isagu nicmada loo qoray horu ka aqri fahuwa laka wajeeka loo saxiixo kii kale yidhahdo markaasuu yaa amiir meelaan waxaad intuu aan ku celiyo aan ku celiyay ma ka dhahayo xataa fiiri dulmiga xaq uusan lahayn buu siiyey buu leeyahay wuuna qoslahayaa marka ina habeerade kama hadlayo dhalinyaradan dhegaysanaysa ma siinayo miyaynan ahayn saasoo kale inaad samaysaan waa caadi saasoo kale wax inaad higsataan weeye
saasoo kale ruux samaynaya haddaad aragtaan waa arrin caadi u dulqaata maxayna ahayn bal idinka isweydiiyo muxuu leeyahay hadda oo arrintaa uu sheegaya oo uu saa uga dhigaya مؤمن لا تفضحني يا أخي ودها فضيحين إلى جدا والله برواد شيء ساساني fiiri jees-jeeska wax walba iga daran jees-jeeska wax walba iga daran dadkeenni inuu damiirkii baa dhintay haddii ay indheergaradkii aqoon-yahankii culimadiinkii wadaadadii hadday halkaa darajadaasi aanu joogno maxaa marka rajada aan suganana maxay tahay oo haddana ilaa la dhegaysanayo oo masrax intii la siiyo la dhegaysanayo jees-jeeska waa dulmi cad wey waa dulmi ka ugu daran wey markaasuu hadda jees-jees way latay ku qoslahayaa waxaa weeye waxaa ficlaan lahayd inay meesha uu taaganya meenta ayna ahayn meel uu dad wax ku baraaye meel uu mataqaanaa maxaa dhaho shaacirayn ama comedy hadday ahayd waanu dulqaadan lahaa oo maar dadka doonayo inuu ka qosliyo keli ah oo dadkuna ay gartaan inuusan cilmi u sheegaynin tilmaanna uusan u sheegaynin laakiinse ay tahay un inuu macnaha ka qosliyo un keli ah waxa u raadinaya ay tahay markuu dhameeyey buu fa huwa laka hadda dameerka hala saara buu didku waxaad haysan waa la dulmiyey moogta eray cajiib uu daba dhigay marka fiir hadda fiiri ku dhammaystirayba uu ku dhammaystiray wuxuu yidhi idinku waxaad dhahaysaan bir waa la dulmiyey macnaheedu maxay tahay anigu ma dhahayo waa la dulmiyo wey macnaheedu wey wax kaloon ka arkara intii sheekadii soo martay wuxuu soo waday siduu u sheegayo siduu usoo bandhigayo siduu usoo waxaynayo waxay ku soo urursanaysaa idinku waxaad dhahaysaan bir waa la dulmiyey markaas wuxuu yidhi macnaheedu waxaa weeye oo ka cad meeshaas oo ka xadfan iska cadoo ku jirta anigu oo ma arko in la dulmiyey ninkaasi sababta uu saa sii caddaynaysan waagta liyaclama ana allaha calaa kulli shayin qadiir buu yidhi macnaha wuxuu yidhi waxaa ka horreeya hadalkan hadal cajiiba buu yidhi ama hadal buu yidhi liyaclama ana allaha calaa kulli shayin qadiir miya aduu inuu yahay waxay igu soo xusuusinaysaa waxaa la yidhi xadiis baa waxaa jiray laga sheegay waxaan mal inuu ahaa cali miyo ah mise cumar midkood ba radiallahu canhuma midkood buu ahaa yaa arrin aayad qur-aana baa loo sheegay oo nin daliishay ruux daliishaday oo yiri aayad u daliishaday oo sidii meeshii ku habboonaynda siduu u arkay aan loo daliishanin markaas wuxuu yidhi baa lidhi kelimatu xaqin yuraadu biha albaatil waa eray xaq ah waa eray sax ah waa eray habboon oo macnaha waxaa waye aayadda qur-aanka laakiinse yuraadu biha albaatil macnaha waxaa loo isticmaalayaa dulmi iyo si qalad ah oo xun baa loo isticmaalayaa tan oo kale hadda lamid tahay mujrim daalim aha khaa'in aha dhiigyacab aha saaxiib aan aqoonin saaxiibnimo garanaynin wax walba oo bini aadan xun oo bini aadan lagu sifeeyo inteedii badan wuu wataa ruuxa asaga ah markaasuu wuxuu ku soo ururiyey wixii oo dhan wuxuu ninkaasi aaminsan yahay in allaha calaa kulli shayin qadiir buu aaminsan yahay intaasaa la qiimo badan taasuu aaminsan yahay in allaha calaa kulli shayin qadiir macnaheedu waxaa weeye dadka inuu ilaahay iga dhigo inaan dadka haddaan hadda waan gumaadi dadka ilaahay baana sababay oo in allaha calaa kulli shayin qadiir haddaan gumaado war waan idin gumaadi war naga tagan ana gumaadi ama nama gumaadi karta annagoo dhanba intuu qori soo qaatay baban ah ama nuclear soo qaatay buu ku riday markaasuu yidhi fiiri waa mujrimiin weeye waxaynan aaminsanayn ilaahay inuu calaa kulli shayin qadiir inuu yahay bayna aaminsanayn bal adiga caqliga loojika iyo maskaxda la isticmaalaya idin fiirsada kiisuba sax ma ahayn jeelku hadda ku saxmi doonaa buu wuxuu rumaysnaa buu ilaahay inuuna qaadirba ahayn oo uunan qof ebera una wax ka dhigi karin maxaan tusaalahay abow gabdhaha yaryarka hadda quruxdadan ee hadalkaa dhegaysanaya waxaan rajaynay ilaahay inaan ka baryahayaa waxaan rajaynay inay qalbigooda uu leeyahay war duqan wuxuu noo sheegahayo wax sidaa awey war duqan waxa uu sheegahayo macna ma samaynayso waxaan rajaynay inuu intaa qalbigooda inuu ku jiro waxaan rajaynay hadduusan ku jirin
oo ay isleeyihiin wax fiican buu idiin sheegayaa, ninkan ka qaata, ilaahay noo naxariisto, ilaahay noo naxariisto. waxaa markaasi rajadeennu xataa inaanu wuxuu yidhi ninkii nin intuu meel kula kulmay wax dhexmaray intuu wax dhexmaray iyo wuxuu ku yidhi kii kuwa habaaraya markaas wuxuu ku yidhi baa lidhi reerkaagii alla xaggaad u socotaa buu yidhi markaas reerkayga xaggaasaan u socdaa reerkaaga alla kuwa nabadgeeyey buu yidhi maya sorry cafan maya wuxuu yidhi adigu ninkii intuu uu habaaray wuxuu yidhi reerkaaga alla kuwa nabadgeeyey buu yidhi markaas wuxuu yidhi baa su-aalan xaggooda u socdaa kama horreyso arrintoo dhan wuxuu ku soo koobay macnaha reerka alla kuu nabadgeeyey meel kastood soo martaba aad markaad ilaahu bilo soo maqno maalmo soo maqno bilo soo maqno sanado soo noqdo ruuxu aakhirkii reerkiisii iyo butagi un danihiisa markuu soo guto asagoo marka taasuu ninkan ka hadlahayo wuxuu lahaa reerkaaga alla kuuma nabadgelayo balaayo dhexda allah kaaga bixiyo gooray noqotaba buu ku yidhi asagiina wuxuu ka soo qaaday xadadan inuu reerkiisa u socdo xaggooda u socda kama horreysa buu yidhi marka inaanan maanta haddaynay dhallinyaradaasi aynan dhammaantood haddayna ahayn intooda badan haddaynan lahayn warwadaadkan wuxuu noo sheegayay muxuu yahay wax seeway waxbaad muddaa inuusan isqabanaynin maxay tahay ninkan noo ammaanahaya khaa'inimada mujrimnimada dulmiga noo ammaanahaya een ceebteedina hal marna sheegaynin muxuu yahay haddaynan intooda badan haddaynan ahayn kala badh ama in badanoo iyaga ka mid haddaynan saa qalbigooda aynan ku jirin waxay lalta oo kale reerkaa alla kuwa nabadgeeyo saaran xaggoodii u socdaba kama horreysa yaa meesha yaa ka muuqata macnaheed waxaa weeye jihadeediiba xataa maba aynan bilaabinba xataa inaanu recovery samayno ama aanu isa saxno dhibka iyo burburka iyo waxa inuu socda inugu jira soo qaata idinka hadda maxaa rumaysantihiin wallahi aanu dhallinyaraan haddaan qalin jabiyo meel $300 aan ku shaqeyn waan raadsanaya adeeru waka marka waxaa weeye asaga adduunyo weeye hata waxa dhan baa waka intii ruuxa shakhsigiisa la dhisi lahaa ardada dhallinyarada cadaaladda xalaal miradnimo la dhisi lahaa ee la iskula dardaarmi lahaa yaa wuxuu wadaadkan dhan kula dardaarmahayaa adduunyo iyo saad u leedahay ninkaasi nin weeye waa nin rageed ilahay baa idinku dhaariyey feeri soo ma dhaanteen inuusan gadh lahayn inuu leeyahay war dhagaysa nin baa wuxuu yiri maalberiye sheekabay ku xusuusini waxaan yarbaa sheegaan idiin sheegi dadku waliba aan diinta iyo waxa shaqa ku lahayn ee iska taagan iyagu kuwaasaaba dhaamaba sababtoo waxooda iska cadaysanayaan iyagu ma u arkayaan dadka diin iyo uma soo marayaan wuxuu meel ka dhacday beri laba qabiil baa dagaalamaysay dhul bay isku haysteen mid ka mid a duqaydii qabiiladii dagaalamaya ka mid ah ayaa masaajid buu soo galay masaajidka wuxuu soo galay oo dhalinyaro aad u fara badan oo qabiilkiisi ah asaga meesha uu ka soo jeeday ahaa ay badankood yihiin oo meeshii kutub akhrinaysa waliba xadiiska akhrinaysa can abi hurayrata radiallahu canhu ku haysa qaala rasuulada ku haya meeshan akhrinaya buu soo galay saasuu u fiiriyey markaasuu ninkii waa isu qaban weyday dhalinyaradan meesha fadhida nin abaa hureyre oo isagu soo marka u arkay carab uu isagu qalbigiisa suuraystay ku mashquulsan wixii uu soo sheegay iyo diintii uu soo sheegay dhulkoodina asaga de si u arka la dhacayo markaasuu wuxuu yidhi baa layidhi gelin la gubiye abaa hureyradaha ku haynine abaa hureyre nin dhulkiisi xoraysta buu ahaaye orday oo dhulkiini dhicsada buu yidhi baa layidhi marka kaasoo kalaaba dhaama ninkaasi hadda odayga diin iskuma waxaynhayo adduunyadaasunbuu hayaa wixiisoo dhan waxaa weeye un ninka ragga waa ninka wixiisa dhacsada ninka ragga waa ninka wax iska celiya saasuu isagu noloshiisa iskaga tahay dhar culimo ma qabo dhil khabiir ma qabo laakiinse ruux baa hadda sidan u muuqda iska dhigaya ruux ehli diin aha ruux aqoon-yahan aha markaasuu haddana dhalinyaradii saa ku leeyahay oo cad buu wuxuu ku leeyahay shakhsiyadaadu iyo dadnimadaadu waa inaad noqoto nin ruux wax soo dhacsada wax xoog isticmaala dadnimo shafka muujiya kor isu
ilaahay baa meesha kaba saarba iyo qadarka ilaahay iyo naxariis iyo kaba saarba meeshaba aadan qaado bal meel igeeyo mise waxaad u fakaraysaan moogta markaan runta idiin sheegno qaran jabkii Soomaaliya qofkii baa la jabay maxaa jabay waxyaalaha taana waa sheeko kale ma rabo inaan galo qarab baa jabay baa lagu dhihi maxaa qaran jabi muxuu yahay qaranka jabay ee la sheegay 20 sano ee dad wareersan oo waxa asaga hadda soo tababaray isticmaarkii wadanka rabay inuu qabsado qaswatu kusoo sameeyay markay xoog ahaan u qabsan waayeen xagga maskaxda kaga duulay wixii ay ku reebeen bay 20 sano rabeen dadka inay wax u dhidhisaan sidii aboorkii dudumada dhisayay oo markaas aboorkaaba dhaama xataa kuma burburtaba orod dudumadiisu ama burburtee markii dambana waa kii intay tiirashi ayna u dhisin oo iyagiiba naftigooda ay wax walba hoosta ka goynayeen hal mar buu burburay wixii marka 20 sano intuu la isku dhoobay markii dambana burburay dhibkii uu noo keenay iyo dhaqankii uu burburiyey iyo dhaqankii soo jireenka ah ee Soomaaliyeed diinka lahaa dhaqan madaxmeedka lahaa kala wixii oo dhan buu qasay oo labay markaas aminkan laga soo kaban la'yahay 20kii sano baa laga soo kaban la'yahay ilaa hamda asagana hadda wuxuu rabaa inuu nooga dhigo inay 20ka sano ay ahayd maartaqana janno la soo intii la galay inaan marka balaayan ugu habsatay 20kii sano inaan weynay naxariis inay ahayd baba laga yaabaa oo hadda dadku ay soo dhabta ogaadaan sababtoo wax qasan buu ahaa oo dudume loo bay ahayd reeshkii waxaa tihiin qaran jabkii ku dhashay hankiina u sareeyo waxa weeyaan jaamacad ma la dhamayn karaa shaqana ma la heli karaa anagu aan waxaan nahay jirin baa waxana laga dhaadhiciyay markaan da'diina ahayn Soomaaliya shanta Soomaaliyeed alaab baanu kala wadi jirnay حتى بتاع مناشق waxa uu leeyahay alaaban kala wadi jiray maxay tahay abo alaabtaas abo maxay tahay alaabta uu sheegay aan kala wadi jiray maxay ahayd ma wixii daan qiyaaso ku saleysnaa weeye tuuganimada iyo ahayd burbur markii wixii dudumadeeda la dhoobay ay sii dhacaysay da'diisa hadda qiyaaso ninkan waxay ku aadan tahay dadkii asagoo hamigiisu ku jiro inay dudumadii la dhisayay dhinac ka galaan godadkeedii dhinac ka galaan wax ka dhuuqaan oo meel xafiis iyo wax la sameeyo ay ka burburtay bay waqtahay marka maxaa la hamsanayo oo le balaayadan kale waxay maxay tahay qar iska tuur baaban ahaynba hankayaga haddii la ilaa shaqo iyo guur iyo wax macna noo sameynaysa ma jirto idinku laakiin generationka waxaa tiin ku dhashay hadda waxaan la yaabaa markay dhahaan dhalinyarada jaanis lama siinayo shaqo lama siinayo war from primary ilaa jaamacadda laga soo bixinayo wuxuu ku leeyahay hadana shaqaha la isiiyo maxaa jaamacad la siini maxaa midaha kale iyadana aan waqtigeeda jeclahay inaan ka hadlo waxay tahay meel burburtay dhul meel dab intuu ka kacay wax alla wixii ka taagnaaba burburay oo dambas noqday wax laga dhisi muxuu yahay ruux dhii hadda waxbaa inay dib wax loo sameeyo waa wax la garan karo la isku dayo ma diidayo laakiin se wax intii hore sii jirtay intii la qasay oo la labay dekan noqoto dambas noqotay oo dambas hadda marka la doonayo dhoobo in laga sameeyo oon ku habboonayn xataa oo guri iyo dhiiqo la dhiso oo waxba isqaban la'yahay iyo hadda wuxuu doonayaa inuu ninka nooga dhigo inuu meeshii wax jiro wax alla wixii jir dhaqankii hore waa laga soo tagay oo 20kii sano hadda idiin sheegay waa burburisay dhaqankii Soomaaliyeed ee soo jireenka ahaa ee dadka indheer garadka ahaa ay dhalinyarada tababari jireen ayagoon iskuul iyo la dhihin on meel iyo qaran iyo waraaqaya qaadin ayaa maskaxdooda la dhisi jiray shakhsiyadooda diinkooda mabda'ooda waxa ay yihiin inay dadka kale xaqooda iska ilaaliyaan cadaaladda ku dadaalaan yaa la bari jiray tii waa laga soo tagay markaas waxba loo dhoobay baa leeyay wixiina way burburtay hadda marka isdaba wareegaas lagu jiraa markaas hadda waxa meelaha intii laga waxeeyo mid wax uu garanaya jirin oo wuxuu yaqaana ay jirin oo asaga naftigiisa wareersan oo dhunsan yaa wuxuu doonayaa dad inuu tawjiihiyo waxa meelaha lagu malmaluuqo yaa hadda laga dhigay iskuul laga dhigay oo wuxuu leeyahay primary buu leeyahay maxaa primary maxaa ereyga firi primary macnihiisa hata muu garanayo primary waxbarashada waxa la moodaa inay dugsiga sare iyo jaamacadda iyo ay tahay waxa ugu muhiimsan ma aha
برايم إريجا وفيرسو برايم وآس كوي أو مهم سوي سكول كا دوكسيكا سارة نوع نحن وحلا second way برايم وكوجي وآس كوي waxay erayada isku macnaayeen prime minister dalka yaa u ah muhiimka ah ruuxa madaxa ugu muhiimsan wasiirada hoos yimaadaan wasiirado dhan prime-ka waa prime minister waa prime minister ka way macnaheedu waxa weeye wasiirada jira dalka maamula waxaasoo dhan waxay hoos yimaadaan prime-ka wasiirka muhiimka ah ay hoos yimaadaan marka primary school waa aaski waa gunti way waa meesha wax laga dhiso ilmuhu inta hadii loo sameeyo xataa way ku filan tahay noloshiisi wax kale oo dhiman ma jirto si doona wax loo bare ama aabihii iyo hooyadii oo dad qumanaha baraan oo sheegaha saah u barto iyo akhlaaqdiisa loo baro ama qalin iyo buug loogu qoro marka tiibaba eberehe maxaa marka wax la daba soconay tii wixii baba eber primary ma waxba ma jiraba markaas wuxuu arkaa kuleeba إلهو نو نحرسه ومفعول به وسبجكت war maxaad ku dhacay jaamacad markii laga soo bixiyay adigu wadanka maxaad soo kordhisay markaas hadana ku leeyahay aabahay ma shaqo isiis oo aabahay intaas ku soo korinay saddex nin oo xamaalina